boqolaal dadweynaha haween u badan aadna u faraxsan ayaa buuxdhaafiyay banaanka hore xarun ay ku jireen maxaabiistii shalay laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. dhammaan dadkan ayaa ahli wadaag la ah muwaadiniintan oo 10 sano ku xirnaa dalka Itoobiya. hooyo Xaawo Xasan Sheekh Ibraahim ayaa ilmeysay si qiiro leh u marxabeysay markii ay aragtay wiilkeeda oo 10 sano ka badan ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Itoobiya. haddana geek ilaahay ma hadla shukr leh dawladda federaalka alxamdulillah maxadwiin aan ku hayna ilmadan walaanyagan xaniindiyeen ilaahay ma hadaas leh ilaahay ma iyadoo faraxsan ayay u duceysay madaxda dawladda. dawladii jirtay joogta alla ku dhiga dal wasaaraha maxay alqaar reer wasaaraha حسن على قيره إلهي حسن فرماجة كل ما ينكتوغانا إلهي امرجل جوغ دولة أنا كور إلهي كلك إلهي سبحانه وتعالى جاك فرحد أنا ما أكور كور ما غسلون دبعتك جرني ما غسل بوراني أولادنا مالله ولا أنا مالله دبعت بلن يا أمرني dadka la soo celiyay oo dhamaantood ahrag hadda waa xor laakiin sanado mugdi ah ay ku soo qaateen dalka Itoobiya. qaarkood waxaa lagu xukumay 20 sano kuwa kale ayaa ku qangaaray gudaha xabsiga. maxamed cabdirasaaq muuse ayaa ka mid ah waxaa la xiray isagoo da'diisu ay ka yar tahay 15 sano jir. aniga waxa laga qabtay xuduudda laga qabtay anigana taariikh socda kadibna wala xiray Itoobiya laga xiray si fiican bay la dhaqantay ya kadibna safiirkayga ilaahay keenay safiirkayga markii dambe keenay ra'iisul wasaaraha aad buu maalinay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku booqday goob si ku meel gaar ah loogu hayo maxaabiistan cafiska loo fidiyay. qaar ka mid ah dhalinyarada la soo celiyay ayaa iyaga oo qeyreysan la hadlay warbaahinta. aan ka soo jeedo waxaan u gudbinayaa in la kala ogaado qabiilka iyo qarannimada dalka dibadiisa haddaad ku xayranto wax qabiila oo ka daba iman kara ma jiro qaran baa ka daba iman kara qarankii Soomaaliyeed baa naga dibay oo godkii aan ku jirnay naga soo saaray. marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo joogto qaranka Soomaaliyeed hal dhinac galo ciidda Soomaaliyeed aabban yeelana aabbihi waa qaranka qofku markuu aabba yeesho hooyadu u baahan hooyadiina waa dhulkiina waa taagan. dad badan ayaa aaminsan in xukuumadda Soomaaliya ay qaaday tilaabo taariikhi ah taasoo lagu xasuusan doono wax qabadka xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Khayre. anigoo Saara Xasan Cabdi wiilkayga hal sano iyo bar iga maqnaa ilaahayna maanta keenay waxaan ku maadinayaa ra'iisul wasaaraha Khayre iyo farmaajo iyo dawladda Soomaaliya wiilkayga maanta nolol ilaahay igu keenay ma hadda koobaad Allah iska leh ma hadda labaadna ayaga iska leh Khayr Allah siiyo maxaabiista kale oo maqan oo Soomaaliya ka maqan oo hooyo walba cunugeeda ka maqayayno ayadana sida anaga ilaahayna uu kala camlayna Allah uu keenay.